xogta aan haynaa qalabka balligubadlada yaala waa ka badan yahay halkana 8 baabuur ama qalab oo ayay idin yaala kolka waxaan balligubadle dhowr iyo 10 qalab siiyay 20 qalab ku dhawaadka siiyay ee booramiyo bakina halkan 14 7 bilood dhisaysa 2 kiiloomitir maxay tahay duufaantii sagar waqtigii ay dhacday dalka Jabuuti oo daris naxay baa gurmad u soo fidiyay dadka xeebaha hadii ay Soomaaliya gurmad u soo fidiso dadkan ku tabaalaysan xeebaha maxaa ku jaban laakiin ka dhuumanaya hadalkiisuna istaama marmarayo shalay maanta la isku soo garab dhigayo adeer ma yihi mudana maaray hore waxaad u sheegtay adiga laftaada in wadada Boorama iyo fardaha ay bilaabmayso rabadaantii dhexdeedii kolka wali ilaa haddana dhagax dhigmaynaad sameeyeen taa lafteeduba miyayna ahayn beenad sheegteen dadaalka federaalka Soomaaliya ma xukumo khiyaaliga social media laga wadana in warbaahin iyo mas'uuliyad wadiisa waa kugu ceeb adiga baa kolka masaafada Boorama iyo Hargeysa isku jiraan 120 iimayna ka badnayn markaad eegto maya 100 kama hadlayo kiiloomitir ka hadlayo wadana maareeyo waxa jirtay waqtigii lagu jiray ololaha ama markii aad ahaydeen xisbiga mucaaradka ee wadani hadallo badan oo waxaad ka hadli jirtay inta badan danaha reer awdala markaas aad oran jirtay ka xukuumadii hore ku dhaliili jirtay iminka waqtigeedii baa la joogaa maxamed faarax baa maareeyo ah oo xukuumadii ka tirsan kolka maadaama xaalado daran soo food saareen gobolka awdal ee abaarihii ka mid tahay wali ilaa hadda kamaanad hadal maxay iska ka bedelay waa maxamed faaraxii hore iska bedelay hortood ma asatahay walaal waxa la iska ka bedelay hortood jirta waxaan ka hadlayay daraan gobolkuna abaarta waqtigu sheegay darantii hore soo baxay maalintii xigtay baan ugu ka hadlay waana sheegay dadka inuu abaaraysan yahay gobolkani oo dhibaataysan yihiin degmooyinka Saylac ama Salal gobolka Salal degmada Saylac degmada Lughaya iyo degmada Baki degmada Booramo qayba intaaba waa sheegay waxa kale oo sheegay in loo hawl galay oo loo diyaar garoobay oo loo diyaariyay wixii laga qayb qaadanay xukuumad ahaan gurmadka dadkaas la karsanayo waxaana sheegay maalinta xadda inay tagi doonto halkan imika wasiirada jooga oo wasiirada abaarta loogu soo talay loo soo xil saareen qaybiyaan waxa qaybinaya shaxdii dadka sidii wax loo gaarsiin lahaa marka dadkayga awdal ee shalay sheegaya anigoo banaanka jooga in dhibaataysan inay wax loo qabto tahay maanta ma sheegay inay dhibaataysan wax sheegay inaan wax u qabanayo abaartii waan gurmanaynaa axadda iyo siinta way gaaraysaa alabta wixii ilaahay ugu soo dhiibay xukuumaddaas ee loogu talagalay wax qabadkiina aanu ka hadli jirnaa inaad xasuusan tahay mooyaane waxa ugu waaweynaa 4 qodob mid wadadan ahayd midna wadada loo yacada ahayd midna dekada ahayd takalna maxay ahayd saamiga iyo airportka marka soo qaado waar muddo 7 bilood oo xukuumadani jirtaa markan midna maanta aad wax qabadkay taagan tahay midna shirkadii dhisi lahayd weekend ay soo baxayso bisha 8aad ay qalabkii soo dhiganaysa ee loo yacado bisha 9aadna la bilaabayo hadda gebgeygu sanad ma gaadhaad la soo dekadina aan qadaraaskeedii bixinayno ummadayda dhibaataysan ee tabaalaysan aan la dareenahoon maanta diyaarna gurmadkii inaan qaadno geyno dambiyaal maxamed faarax shalay wuxuu sheegay oo maanta kaga gabadhay ma jirto mur haday ka qaraadhay wixii shalay sheegay maanta ku celinaya mudana maareeyo horta haday mur ka qaraadhay wixii shalay sheegay waan ku celinaya hadaan qaban kari waayo waxa la waxa ma qaban karin raawado laakiin ka dhuumanaya hadalkiisuna istaama marmarayo shalay maanta la isku soo garab dhigayo adeer ma yihi waan taaganahay tii gobolka waxba loo qabanaya shalay waxaan nahay oo qabto imika anaga qacadku aan oo qabanayna in mudana maareeyo hore waxaad u sheegtay adiga laftaada in wadada Boorama iyo fardaha ay bilaabmayso rabadaantii dhexdeedii kolka wali ilaa haddana dhagax dhigmaynaad sameeyeen taa lafteeduba miyayna ahayn beenad sheegteen maadaama aad ku celcelinayso xukuumadeedu been ma sheegto arrimihii ballanqaadyadii way ka dhabaynaysaa aad ku celcelinaysay taa lafteeduba miyaanay beenahay waqtigii aad ugu tala gashay inay dib uga dhacday anu marnaba meel baan rabadaantu ku bilaabaysaa ku ma jirto marnaba meel aan ku iri rabadaanta wadadaas bilaabmaysaa ma jirto soo helmaysa xaaji waa kow waxaan sa sheegay rabadaantii in shaqadii wadadu bilaabantay shaqada wadadu stage kala duwan bay adeer leedahay waxay leedahay shirkado dhisaya oo kala duwan waxaan xafiiska ugu nimidnay caqabado ku taagan caqabadii markii aanu nimidnay 3 maalmood gudahood baan ka saarnay wadada caqabadii ku taagan ee xukuumadda horgelisay waa kow waxaanu sheegnay rabadaantii inay bilaabatay shirkadaha
qandaraasyada qaadanay kala saaritaankooda way kala horeeyaan mid supervision bay ahayd oo wadada ilaalin doonta midna waa consultant midna waa construction maanta waxaan maraynaa tii u dambeysay schedule-ka aan u dhignay wadaduna mar walba wuxuu ahaa bisha 9aad inay cagaftu gasho adeer weyna gelaysaa hadday geli wada maalinta ay weydiin adeer mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay sheegeen inay gurmad u fidin doonaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolada Awdal iyo Sanaag gaar ahaan Saylac iyo Lughaya arrinta ka xukuumad ahaan idinku seed u aragtaan adeer halka federaalka Soomaaliya ma xukumo meel ka soo gaaraan adeer ma jirto khiyaaliga social media laga wadana in warbaahin iyo mas'uuliyad weydiisaa waa kugu ceeb adigaba dawladdan waxay leedahay xuduudo kala duwan oo Soomaaliland la yiraahdo awdalna waxa ka tirsan tahay jamhuuriyadda Soomaaliland dawlad bay leedahay wasiiradaadii baa halkan joogo oo abaartii qaybinayo oo loo soo xil saarmiyad aamin ilaa oo waxaad aaminaysaa fiqiga xamar joogaad ka harraysaa inaad ka hadasho weey Soomaaliya nama khusayso gobolka awdal waxba keeni mayso dad dhibaataysan oo gurmad loo soo fidinayo taasi ma mushkilad baa jirta dawladdeena baa ku filan markay mid ka weyn oo extraordinary timaado oo muslimiintu isku soo wada gurmanayaan waa la inoo soo gurman markaa laakiin marka teenan dawladdeena baa ku filan in dadkeena aan kaga saarana maanta weyn hayna in mudan maareeya in arintan duufaantii sagar waqtigii ay dhacday dalka Jabuuti oo darisnahay baa gurmad u soo fidiyay dadka xeebaha haddii ay Soomaaliya gurmad u soo fidiso dadkan ku tabaalaysan xeebaha maxaa ku jaban laakiinse muxuu yahay farqiga waxa ay ku kala duwan yihiin Soomaaliya iyo Jabuuti maanta duufaantii sagar baa nagu dhufatay sagar baa maanta nagu dhufatay gurmad baa la fidinay maanta sagar baa nagu dhufatay sagar iyo sagar dhigantan sagar wax inaga baxsan awoodeena ahayd tan awoodeena ku jirtaa waa xaalad abaareed xaalada abaareed inaga ku filan baa ku wada marka ku filan weyno ayaad ka jawaabi doontaa maaraya haddaan su'aal ku weydiiyo dhismaha wadadan marka la eego wadadan dhismaheeda roogan la saaraya asfasho wax laga soo qaadaya Hargeysa ama Berbera tambaray jarka lagu sugayo bahalkaasi inuunan dilaacayn inayna biyo gelayn ama sugnaashihiisa sideed ku xaqiijisay maareeye adiga shaqaalahaagu saaxiibka ceeltir horta waa maasay وانا لسه شقي عيل ترى انت المعارض كان وانا لسه دسباش oo uga mahad celinaya runtii xaq baad u leedahay su'aasha inaad weydiiso temperature-ka walaal waxafka laga sheegtay ma waxa aqoon ku dhahan tahay gaarigu markuu soo istaaga halka injineer xul saaran baa jira waa la geliyaa haday inteedii ka hooseysa lama dhigi kara walaal haday temperature-kii inteedii ka hooseysana saama noqon kartaa darkiisu marka qalab baa jira lagu xaqiijiyo looguna tala galay berberiyada laga soo qaadayo inay ku timaado halka waxa ku timaday halka ugu hooseysay ku imanaysa ugu hooseysa waa 100 ilaa 120 100 konton ku timaday kolka masaafada Boorama iyo Hargeysa isku jiraan 120 imeeyna ka badnayn markaad eegto maya 100 kama hadlayo kilomitir ka hadlayo tamarashiga cabirkiisa heerkulkiisa ay kala hadlayaa walaal ay kala hadlayo waa ugu hooseey 120 way ku timaday uu kariyo markii la dhigay baalku inuu duubtaaba haydo waa sector duubtaaba haydo soo karaya daamirka laga qaado halka Hargeysa airportka waxa la geeyaa Burco daaqoon baa lagu geeyaa walaal wax la iska rarayaa walaal ma jirto halkana way fududahay walaa 100 xoogaa wad maasata walaal marka way naga dhameystiranta anaga tamarjirkeenu hoos uga mudhicin haduu hoos ka dhacana anaga khasaaro nagu tahay wadada kuma anaga nagu taa ku ceeboobay waa gartay qalabka dhismaha halka yaala iyo qalabka baligubad la yaala xogta aan haynaa qalabka baligubad la yaala waa ka badan yahay halkana 8 baabuur ama qalab oo ayay idin yaala kolka waxaan baligubad la dhowr iyo 10 qalab siiyay 20 qalab ku dhawaadka siiyay ee Booramiya Bakina halkan 14 7 bilood dhisaysa 2 kilomitir maxay tahay horta maanta hadii aan wadooyinka ninka la haysan lahaa qoraa oo soo hadli lahayd oo cabashaa geyn lahayd oo oran lahayd halkaas aad nooga xatood nooga badisay wadada ana ka soo jeeda gobolkan ana ka soo jeeda ciidiga la xajala badan ma jirto wada kasta waxay xaq u lahayd marseed waxaanu sameeynay gaadiidka RDA halkan inta ka shaqeynaysa halkan inta ka shaqeysa annaga u qaybinay wax dhibaato lagu qabanay taas ma jirto walaal mana jirto wax la kala basaday walaal haddaan dhinaca kale ka tuso midna waa 740 midna waa 630 haddii laba sano taraagis dheeraadaan waxay isdheer yihiin muddo 12 kilomitir shaqada ah wad baasata